بسم الله ودكتور أبشر على عبدي waxaan jeclaan lahaa caawa inaynu wax yar ka niraahno xanuunkan maartay marka wadanka maartay adduunyada dhan maray waxa uu yahay iyo saameynta ama raadka uu ku yeelan karayo dadka Soomaaliyeed intaan marka barnaamijka saameynta aynaan u gelin waxa fiican lahaa horta inaan bal inoo soo koobayna aan ka hadalno xanuunka laftigiisa muxuu yahay coronavirus wada socotaan ilaa December buu bilaabmay oo China ka soo bilaabmay waxaanu virus keeno dadku isu gudbiyaan markii ugu horeysay waxa la yiraahdaa wuxuu ka soo gudbay maarta xayawaanka fikrado badan oo kala duwan baa hadda socda hatta in gacanta lagu sameeyay sheekaba socota laakiin inagu hadaan nahay dhaqaatiir ilaa hadda waxaanu haynaa in viruskan oo dadka isu gudbin karayaan viruskan calaamadihiisu muxuu yahay xanuunkan waan ogtihiin calaamadihiisu waxa weeyaan sida hargabka kale dhibaatada weyn waxa weeyaan qofku ma garan karo inuu hargab qabo iyo inuu maartay xanuunkii qabo marka qandhadii iyo quficii iyo neefto qabanaysa iyo maartay dhuunta xanuunaysa hadii la duuf soconaya sanka marka arkood marna ma balhan waa qalalan yahay madax xanuun xun iyo calaamadaha ugu dambeeyo la ogaaday oo ah maartay in urkii iyo dhadhan ka tagayo qofka markuu calaamadaha yeesho yaa u nugul oo xanuunka kan sida fudud u qaada waxaan waa sida hargabka iniri nooca viruskeena isagoo noocyo kale oo hargab ah buu jiraa marka dadka dhalinyarada iyo dadka difaacoodu fiican yahay inta badan soo ma ridanaya waxa weeyaan sidii maartay iswadkii oo kale inoo kelmadda iswadka waxaanu naqaanaa maartay xanuun hargab oo kale laakiin ka yara duwankii caadiga ah qaabkaas oo kale u mari karaa yaa u nugul dadka xanuunada maartay kala qaba sida dhiigkarka sida maartay neefta sida maartay waxa la yiraahdo diabetiska oo ah sonkorta oo kale iyo waa u nugul yihiin waxyaalaha aynu ka hadli doono saameynta uu ku yeelan karo dadka Soomaaliyeedna bay soo galayaan iyaguna si fudud ba goorma la ogaan karaa xanuunkan waxa la ogaan karayaa qof ku dhaco ilaa 2 ilaa 14 cisho inta u dhaxayso ka soo bixi karaya sidee buu ku faafaana markaynu sidoo ku faahfaahno waxaynu ku ogaan karaynaa inta aynu maartay cudurkan wuxuu ku faafaa xayawaan waa ka iman kara dadku qaadsiin dadkuna way qaadsiin karayaan iminka wadankeena qaabka hadda uu fidaya waa nooca community transmission oo ah inuu bulshada dhexdoodii mar wuxuu xayawaan baa dad u gudbiyay mar waxa weeyaan qof socdaal ku yimid baa ku keenay oo labada qof baa isu gudbiyay marna iyadoo aan dad banaanka uga imaan baa bulshadu iyadoo isku gudbinaysa oo dhaxaysa marka hadda kan in haysta inaga magaalada doonaha noqoto meesha doonta noqoto waa taas u fidaya mart community-ga qaabka waa maxay waa qufac iyo hindisada iyo wax la mid ah ayuu ku gudbayaa oo ah dropletiska iyo airborne baa xanuunka noocaas ah aynu ka hadlaynay daawo ma leeyahay maya daawo ma leh daawadiisu waxay noqonaysaa iyadoo la qaato talooyinka bahda caafimaadka oo ah in la kala durko in afka la xirto sida tan oo kale in maaragtay gacmaha la dhaqdo noocaas baa daawadiisu noqonaya daawooyin la leeyahay waa la soo saaray oo waa la wada baa jira oo aan ilaa hadda maartay la isku raacin arinta ugu muhiimsan waxa weeyaan sidee looga hortagi karayaa waa noocan sheegayo kala fogaanshihii umadu inay kala fogaato in gacmaha la dhaqdo in qalab la isticmaalo in tan la isticmaalo in way tusi doonaa bahal alaab halkan taalo falahalkii iyo saabuuntii iyo daawadii disinfectant-ga ahayd ayaa iyadana maartay loo baahan yahay in la isticmaalo waa in falahalku mar walba ag yaala qofka saabuuntii maxaan ku yiraahdaa baasha la yiraahdo disinfectant oo faraha lagu dhaqdo iyo alaabtaas waa tan ugu muhiimsan oo looga hortagi karayo qofku inuu gurigiisa joogo maxaan ku yiraahdaa oo bulshadii kale uusan u gudbin ayaa marka intaas aan
kaga baxno xanuunkan wuxuu yahay sidoo gudbiyo wax kale su'aasha ugu muhiimsan oo hadda aynu rabnaa ka hadalno waxa weeyaan saameyn intee leeg buu ku yeelan karaa caafimaadka dadka Soomaaliyeed waxa laga hadli karaa saameyn intee leeg buu xanuunkan ku keeni karaa dhaqaalaha wadanka maxaan ku raahdaa caafimaadka wadanka bulshadii horumarkeedii waxyaalo soo dhan buu saameyn karaa marka waxa la dhahaa innaga dad baa waxay aaminsan yihiin koow muslimka kuma dhaco oo gaala loogu talagalay dad baa waxay ku dhahayaan madowga kuma dhacayo kuleyl bay ku nool yihiin gaalada meelaha qabowga ku nool baa loogu talagalay waxa soo dhan waa khurafaad waxan waa xanuun jira oo in la aqbalo loo galiya oo fidaya oo fidi karaya oo Soomaaliya imika jira wuu jira waana buuxa anu boosaasan imika jooga boosaaso nasiib wanaag asbuuc soo socda waxa laga yaabaa in la keeno mashiinka wax lagu baari jiray oo WHO keenaysa meesha tan lagu xiri doono meeshii loo diri lahaa Maxamed ama Garowe boosaasa la soo dhigaya waxaan aaminsanahay dhaqaatiirdan nahay inuu aad iyo aad ugu jiro marka saameynta leeg binu wuxuu ugu yeelan karayaa dhaqaalaheeni waa saameyn karayaa caafimaad ahaan waa saameyn karayaa dadka xanuunada la nool xanuunadan maartay kale sida neefto kale iyo dhiigkarko kale iyo hadii la ku roon yahay sonkorta iyo waxa soo dhan si aad u qaban karaa oo uu saameyn xoog laba ku yeelan karayaa waa loo dhintaa xanuunkan si xun baa loogu dhintaa uu ka duwan yahay hargabka qaabkiisa loo dareemo laakiin waa ka duwan yahay waxaan weli la aqoon maadaama uu cusub yahay qof kasta uu ku dhaco wax ma uga tagi karaa raad ma uga tagi karaa mase uga ma tagayo waxa la aaminsan yahay inuu xanuunkan wax badan uga tagi karayo dadka qofku ku dhaco sababadiisa inuu uga tagi karayo noloshiisa xubnihiisa kale wax yeeli karayo hase yeeshee weli maanta dhaqaatiirtu ma oran karaan qofku ku dhaco waxaas baa ku haraya oo ku saameynaya hooyada wax nuujisa hadda waxaan kulay ogahay ilmaheeda naaska waa u dhigi kartaa oo waa nuujin kartaa kama gudbo waa la isla raaciyada hadda waxa socota cilmi baaris la leeyahay horleeceedu yahay xanuunkani wuxuu ku gudbaa xataa galmada oo xaaska iyo ninka xaaskiisu isu gudbin karayaan hadii ninku qabo u gudbin karaya gabadhi hababka uu soo gudbiyay raad weyn oo ku yeelan karay inuu qof aan maartay markaas soo gudbeen si aanu la socono fahamsanayn inuu soo gudbo sida galmado kale naaska alxamdulillah wali hadda waxa laga reebaa waxa la yiraahdaa ilmaha uma gudbi karay waxay ila tahay hadii aan hal kelmad ku soo koobo iraado waraad saameyn intee lag dadkeenu ku yeelan karaa wuxuu ku yeelan karaa dadkan waa u dhiman karayaan hadaan la raacin talooyinka iyo ay bixinayaan qoliyaha caafimaadku si xoog leh baa loogu dhiman karaya xamar waa u jeedaan wuu socdaa goboladii dhan hadda wuu ka jiraa Puntland inta badan hadda waa laga wada helay boosaaso hadii la baaro waxaan amsanahay wax badan baa laga helayaa marka ninka soom baa lagu jiraa qofka isagoo sooman ilaahay idinkiisa waa soonku daaweyn oo noqonaya waxaan rajaynayaa in qofku inuu haduu ku dhaco gurigiisana joogo wax u cuno tamar yeesho waa sida hargabka oo kale la yiraahdo qofka haduu kugu helo gaajada xanuunka ku sii dilaya oo kale waxyaalo badan waa wax inagu cusub marka waxaan rajaynayaa ilaahay ka baryaa inuu raad badan inagu yeelan laakiin dadweynaha waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa xanuunkan waa xanuun aad u jeedaan ummadii inaga aqoonta badnaa inaga daawada maartay haystay dhaqaalaha u haystay ayuu kaga dhawaajiyay kaga qaylisiyay ilaahay inoo fududeeyo yaan la dhayalsanin raadka inooga tagaya raad xun buu noqon karaa haddaynan u hoggaamsamin talooyinka iyo waxyaalaha la siinayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.